kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada qaybta maqalka ee ha noolaato oo ku soo qaadan doona waxyaabo kala duwan oo dhinacyo badan taaban doona waxa naga qayb qaadan doona oo halkan ku sugan qayb kamid ah xubnaha ha noolaato kana ila qabili oo kana qola wadaagna اسمعنا كوسا نوندنا نقول حكاية سياسة حسبية ودنيا تنولاتو عبد الولي كراديان جلال همركن إن نقول عبد الولي هو لسعد سيان فيليا قدوميها يسدو أن أشرحي فدرال كوبية هاي إنه هذا وكلا بحيي يماركتي أن سيدي لتهاي حلقة صوماليا أن أذيك محط قدر لهاي فكرة هانت هذا بسم الله والله العبد الناصر واد ما هتصنتهاي سؤاشانا سياد وقطة دير وحا أشرحي قدوميها أشرحي شرحي ساسنا محو أهايتو وحا يهي يميشي كيميد يوم محو أهايتو وحا دمكرو يو سفي عنو طابت سيدو كلا وحو عبري سامينتو نغو يالان كرو يعني نغو إنو نو يهيدان waxaa muxuu ahaayeeto haddaan usoo noqdo su-aasha aad weydiisay oo uu highlight ku sameeyey guddoomiyuhu horta federaal waa inay duruuf keento sida duruufaha muxuu ahaayeeto ama diin dad ku qaybsan ama luuqad ku qaybsan ama muxuu ahaayeeto ay duruuf dabiiciga geographical sida badahoo kale ay kala xeereen waxyaabahaasay ahayd waxyaabihii asaliyan keentay in la samaysto haddaan masawirkaas intaan soo qaadno Soomaaliya aan ku fiirino dadka Soomaalidu waa dad waxyaabahaas oo dhan wadaaga geographically bay wadaagaan diintii bay wadaagaan luqadii bay wadaagaan bal waa ilma abti iyo ilma eed iyo walaaliyo ilma adeer waa iswada yaqaanaanba marka horta baahidaasi ma jirto oo problem la xalinayo oo problemkaas ma abuurna problemyadii uu tahay gudoomiyuhu oo laakiin keenaysaa oo ahayd gudoomi balancegii oon dalkii oon isu dheelitirnaanaynin communication ka dhacaya muxuu ahayto wada shaqayntii inay samaysanto iyo muxuu ahayto qaabkii dhaqaalaha ama distribution loogu samayn lahaa amaba loo soo ururin lahaaba taxigii oo kale caqabadahaas oo dhan waxay noqonayaan kuwana soo food saara waxaa kale oo iyaduna muxuu ahayto practically eminent ah oo na taabanaysa haddaanu dhahno dadkan Soomaaliyeed oo muxuu ahayto abtirsiimada xataa isku mid oo aad muxuu ahayto ummad isaga eg caalamka muxuu ahayto ay yartahay inay jirto haddii la dhaho xalkooda federaal buu noqonaya su-aasha kale soo baxaysa wuxuu noqonayaa federaalkaasi maxay noqonaysaa xuduud maxaa u noqonaysa for example haddaan soo qaadano tusaale aan u soo qaato cabdiraxmaan faroole oo maalin dhaweyd advocate u ahaa federaalka oo advocate u ahaa lahaa Puntland ma yeelaysa ilaa federalism waxaa fiicnaan lahayd in muxuu ahaayeeto la weydiiyo su-aasha ah Puntland laftirkeeda miyayna suuragal ahayn ilaa waxay wadaagtaa Puntland wax kale ma wadaagto wixii Soomaalidu kulligeed wadaagaysay wadaagtaa laakiin haddii gudaha loo sii fiiriyo waxay noqonaysaa iyada disintegration inuu ku yimaado oo ay sii kala burburto iyay imaanaysaa waayo haddaan la tawsiicinin oon si guud loo fiirinin muxuu ahaayeeto maximum laga dhigan waxay imaanaysaa berrito inay muxuu ahaayeeto xuduudan qabiil haddii lagu gooyo qabiilo hoosuu lakabkii hoosaa sii kacaya marka federaal kalaa kasii dhex samaysmaya waxaa la sheegaa hadda darwiishland baa la sheegaa maakhirland baa la sheegaa waxyaabahaas haddaan isla geographical hoos soo dhaadhacno galmudug waa isaguna muxuu ahayte waa another federal thing baa laleeyahy gudihiisa haddaad sii fiiriso waxaa jira waxa la dhaho xeeb iyo ximan waxyaabaha noocaas oo kale ah waa boundaries qabiil ay leeyihiin marka kulligiisna wuxuu imaanayaa burburkani waa la sii jajabaya laakiin haddeer in horey la fiiriyo oo waxaan muxuu ahayte laysu celceliyo waxaa jirta bahbaha Soomaaliya oo hadday jabsadaan xooluhu xerada
waa la waayahay way ooda dhaafayaan marka haddaan hadda jebin anaan mooska dhisin oo in la jebiyo ay bilowdo muxuu ahaayeto waa la waayaya shabku badanaya walada tan isla sidaasoo kale waxaa applicable ku ah advocacyka somaliland dadka qaba haddii la dhaho somaliland waa go-aynaa muxuu ahayto borderkan xuduudan qabiil baan marinaynaa ama muxuu ahayto ama federal ha noqoto ama secession ha noqoto ilaa heerkey bay joogaysaa berritay noqonaysaa muxuu ahayto in qolooyin dhahaan annana waan go-nay ree hebel baan nahay waa go-nay marka all this waxaa fiican annaga dan ma noo yahay marka la fiirinayo qofku inuusan ku dherarin isaga maalinkaas uu positionkaas joogo ama noloshiisa ay tahay ee uu ku dherariyo dadka soomaalida iyo muxuu ahayto mustaqbalkeeda iyo way forward inay tahay annaga waxaan aragnaa muxuu ahayto federaalku inuusan way forward ahayn laakiin qaabka uu noogu yimid xataa inuusan ahayn mas'alada soomaalida ka dhalatay waa imposition banaanka noogu yimid oo exported iyadoo ah baarashuudna loogu keeno la yiri idinka federaal baa ku fiican tihiin qaata taas muxuu ahaayeto ma ahan maslaxadanada wax annaga aana soo aragnayna ma aha sidoo kale waxaa imaanaysa su-aal in la iweydiiyo la dhaho muxuu ahayto alternativku waa maxay haddii muxuu ahayto qabiil ahaanna loo dirirayay u gudbi doonaa su-aashaas kale hadalkaagii baan rabaa in su-aal kaa dhex weydiiyo waxaad sheegtay guddoomiyahan hadalkiis ku jiray federaal inay duruuf ay keento sanado badan baa lasoo diriraya hadda soomaaliya xal baa lala yahay marka duruuf intaa ka badan miyaad sugaysay inay timaado waa su-aal fiican weeye laakiin xalka daawadiisu waa inay noqotaa waa inay xal noqotaa in problemkii lasii weyneeyo problemkii haddii la dirirayo qabyaalad lagu dirirayo in la yidhaahdo qabiilo sii kala noqdo oo institutional laga sii dhigo taas daawadu ma ahaanayso haddaad fiiriso marka federaalkan iyo 4.5 iyo waxyaabahan siyaabahan loo kala jajabahayo qabiilkii yaa la systemize garaynaya waxaa laga dhigaya system of governancegii yaa la qabiilaynaya problemkiiba waxaa lasii gaarsiinaya heer nidaamkii dawliga ah baa qabiilkii la gaarsiinaya marka arrintaasna ma aha way forward muxuu yahay wax bedel noqon kara in muxuu ahaayeto nidaamka dawligu uu noqdo mid central ah oo dawlad dhexe ay jirto dawladdaas dhexe oo qaanuunada iyo shuruucda samaysa oo federaalna ahayn oon federaal ahayn oo dawlad dhexe ah laakiin dawladdaas dhexe ay tahay dawlad qaybsan oo qaybsan xukunkii qaybisay oo dawladaha hoose ay noqoto mid muxuu ahaayeto ay gobollada iyo dawladuhu ay muxuu ahaayeto xukunka dawladaha hoose ay iyagu ismaamulaan oo ka soo bilaabata mid muxuu ahaayeto hoos ka soo bilaabata bottom up ah oo muxuu ahaayeto dadku ay involved yihiin nidaamka constituencyga iyo muxuu ahaayeto ay yihiin kuwa involved laakiin shuruuc banaynaysa in ay muxuu ahaayeto wax gaar ah dadka intiisa kale gobolkaas macayinka uu ka yeesho ayna u jidaynaynin marka soomaalidu sidii hore ay tii hore uga qeylinaysay soo dhici mayso tii hore waxay madax ka noqoso iskama afduubanaya systemka o dhan ma afduubanaya tii hore waxay ahayd system oo imposition ah oo loo dhoofiyo muxuu ahayto guddoomiyaha degmada iyo guddoomiyaha gobolka iyo laga soo magacaabo dawladda dhexe soo magacawday ahay iyo maayarka iyo kulley waxoo dhan lasoo magacaabo tan magaalada laga dhex dooranaya oo qofku waxaa guddoomiyaha degmada iyo guddoomiyaha maayarka iyo noqonaya waxay noqonayaan dadkii lookalka ahaa oo la yaqaanin oo merit ku